wasiirka ciyaaraha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ayaa kulamo loogu wacyigelinayay dhalinyarada khatarta tahriibka waxay la qaatay ardayda jaamacadaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida warbixinta uu nagu soo diray wariyahana Cabdifataax Axmed oo nooga soo waramo magaalada Boorame. wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee Soomaaliland mudane Cali Siciid Reegal iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane Cabdiwaaxid Cabdiraxmaan Cabduqaadir oo maalintii labaad socdaal howleed ku jooga magaalada Boorame xarunta gobolka Nowdal ayaa maanta waxa ay booqdeen garoomada kubadda cagta iyo kubadda kolayga ee magaalada Boorame. wasiiradan waxa ay indhahooda ku soo arkeen dhismaha ka socda garoonka kubadda cagta ee magaalada Boorame waxaana dhismaha garoonkan warbixin ka siiyay sudubaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolkan mudane Cabdiwahaab Yuusuf Ibraahim iyo gudoomiyaha gobolka Nowdal Cabdo Axmed Ayar. نصب بالإسلام بشي كواد سنتك مرحلة كل دول أيو صو مري لبشر كوا يا مركي وعليكم كوليستي قطرات كقاطان ولبي إنجنير وآت كوالتو وفي أي هيكلوتين لبديش كوا ها هون يو بير كونستراكشن وحي مركا هوشود بعمتي بشي كواد أو قيتي ورسفيسي كواد لو سوداي هيدي دورة هوسس كاشرين برنامجكاس GLBG ده waxay noqotay in hawshi bilaabto saako bilaabanto waxoogaa xagga farsamada ama qoraalkii la sameeyay ahaa mar labaadkii fiiskii loo soo daayo oo waxoogaa isbedel ka yimid xagga dawladda hoose injineerkeegii oo shaqada ka baxay intii injineer dambe loo diyaarinayay ayaa wuxuu keenay waxoogaa dib u dhac ah oo muddo qaatay 2 bilood ah tiina waa laga soo gudbay caqabadaas waxay noqotay in fiiskii labaad mar labaad soo bilaabo waxaan rajaynaynaa markaa sanadka soo socda inaanu suuro gelino in uu noqdo garoonka tartanka ciyaaraha lagu geli doono laakiin taas waxay ku xiran tahay sida ay inagu hawsheen ka gobol ahaan ka degmo ahaan ka wasaarad ahaan aynu gobol ahaan uga soo baxno. wasiirka wasaaradda ciyaaraha mudane Cali Siciid Reegal oo ka hadlay madashan ayaa waxa uu ka shanqariyay arrimo dhowr ah oo ku saabsan horumarinta sportiska ee gobolkan. tihiin dad hadday isku tashadaan horumar gaari kara waxna qabsan kara wax ka soo cidi ku siiso ama kugu caawisa wax meel ku gaarsiinaya ma wax hal mar lagu taago laakiin waxa muhiimadda ay wax ku jiraan wax weeye gobolka iyo degmadu cid walba inay isku tashato maantana culayska inagu badan ee dalkeena jira wax weeye waa dhalinyaradeena u sameeyno dhulay ku madadaalato iyo dhulay ku mashquulsho weynaynu u sameeyno oo diyaar garoono golaha deegaankana waxa ku waajiba sida wanaagsan shaqada ay u qabanayaan inay halka ka sii wadaan waliba waxa kale ku waajiba inay dhulka danta guuda garoomo ay ka jaraan dadka danta guuda uga reebaan. Anu horta waan jeclahay in Boorama lagu qabto laakiin ma kaanu meesha lagu qabanayo sheeg maayo laakiin waxaan idin sheegayaa in tartan loogu jiro dii ilaa maanta ciyaari waa xayeysiisay cid walba wixii ay hayso iyo wixii ay fasaanteed garaynayso way soo bandhigaysaa iyo garoomada hayso nooceeda iyo waxa iyadu markaa ku faanaysay ay leedahay halka waa dheera aniguna waliba way idin jira laakiin waxa la ogaataan inta waxa weeyaan meesha tartan lagu jiro. Cabdifataax Axmed Somali Channel magaalada Boorame. wasiirka ciyaaraha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ayaa kulamo loogu wacyigelinayay dhalinyarada khatarta tahriibka waxay la qaatay ardayda jaamacadaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida warbixinta uu nagu soo diray wariyahana Cabdifataax Axmed oo nooga soo waramo magaalada Boorame. wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee Soomaaliland mudane Cali Siciid Reegal iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane Cabdiwaaxid Cabdiraxmaan Cabduqaadir oo maalintii labaad socdaal howleed ku jooga magaalada Boorame xarunta gobolka Nowdal ayaa maanta waxa ay booqdeen garoomada kubadda cagta iyo kubadda kolayga ee magaalada Boorame. wasiiradan waxa ay indhahooda ku soo arkeen dhismaha ka socda garoonka kubadda cagta ee magaalada Boorame waxaana dhismaha garoonkan warbixin ka siiyay sudubaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolkan mudane Cabdiwahaab Yuusuf Ibraahim iyo gudoomiyaha gobolka Nowdal Cabdo Axmed Ayar. نصب بالإسلام بشي كواد سنتك مرحلة كل دول أيو صو مري لبشر كوا يا مركي وعليكم كوليستي قطرات كقاطان ولبي إنجنير
oo aad quality ugu fiican yahay kala wateen labadii shirkado ahaa Hon iyo Deer Construction waxa ay markaa hawshoodu bilaabatay